بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبن إذن سلامية ولا لا قاليقة كحيران جانل كينا هوي معان ستايل وحايد اللي هاي كسر هذا جانل كينا هوي معان ستايل. أدبن إذن سلامية أدنا وان إذن كو عافمات قبا وحان إذن رجينا يا دمانتين إنا إي عافمات قبطان وأد إلا دنتهين إن ولا لا قاليقة مقالنا هذا أنكو نولنا هاي نيروبي أيانتان دب أيا كجيرو دب كاسو أيضا إن قبله Soomaaliyeed ee ganacsatada ah lagu gaarsanaayo ha ahaadaan TikTok ley YouTube ley walow hadana shalay aan maqlaayay gabar yar oo student ah ayadana la afduubto la tagay marka waxa rabaa inaan fariin digniin ah u diro gabdhaha Soomaaliyeed reer isli dukaamaleeda ee ganacsado ee hadana social media ku dhex jiro YouTube leyda ah ama TikTok leyda ah ma kala dhacaan aalada iyada fara badan social media aniga ayaa laba jeer ayaan ka badbaaday shaqool oo yani isku day sameynayaan in aniga ay afduubtaan amal mar taxi ayaa naloo adeegsaday oo yani guri hortiisana loo dhigay marna aniga ayayba dhaawacay isoo gaarsiiyeen labada marbo marka hadda ay indhaha ay ku dhufanayaan hadda waa artaa maanta indhaha waxa qaba muraayadihii indhaha ay ugu jiro iftiinka zaidka ay dhibaan saddex bari ka hor oo maanta ku jirto ayaa isku day in aan afduubta amal isku day laakiin waxa ila socday wiil kamida wiilashan carabta ah oo alaabta ii hagaajiyo xaafad ayaan alaab geynay markuu yani isku dayga dhacaayo xaafad ayaan alaab geynay gabar alaab naga hagaajisata loo dhameeyay alaabtii aan qaadnay marka gabadhii alaabta u geynay markaan gabadha alaabta u soo rakibnay oo iskugu soo xirnoon ka soo laabanay aan gurigeena u soo socono taxi aan soo qaadanay taxiga ka degay aan taxiga ka degay gurigeyga hortiisa wiilasha alaabta ii hagaajiya carabta meesha alaabta lagu hagaajiyo wax dhan waa aniga gurigeyga isla meesha hal meel ku wada noolnahay ma fahanteen taxi markaa ka degnay aniga yarkii gadaal u laabtay markii dukaan aniga agteyda ah wuxuu rabay inuu ka soo gato sigaar ka dhamaaday yarka wiilka badana ila socdo oo ila shaqeeyo oo wax isla soo godgodno kuwa kale meesha gudaheeda ku jira ma soo baxaan oo alaabta hagaajiyaan asagana meesha ayaa wuxuu ka yahay manager oo qofka oo mas'uuliyadda meesha ah badana aniga asagoo soo socno 24 hours soo socna hadii alaab guri loo qaado hadii alaab la soo gadaay because asagii meesha manager uu ka yahay laakiin luqada ayaa dib ku ah anna markaa caawiya okay alaabta guriga markii aan dejinay oo aan soo baxnay oo qofkii alaabta la ungeena soo rakibnay aan gurigeyga aan soo gaarnay aan ka degnay yarkii Ayman al dhahaa yarka wuxuu ku laabtay marka gadaal u laabtay anna gurigeygan soo aaday aan gurigeyga gal rabay yarkana dukaanka dariskeyga wuxuu ka soo gadan rabay sigaar dadka marka waa dad already si diyaar ahaa marka sheekada ay dhacday albaabka aan qaraaci reebaa lagu bilaabo marka waan qayliyay marka telefonkayga iPhone-ka saas u heeyay waa qayliyay Ayman u dhawaaqay aan qayliyay asaga wuu soo fiiriyay marka leen mana iga fogo wuu ii dhow laakiin zaidna igama fogo inta soo orday arkay nimankii mid kamid ah wuxuu soo bixiyay maracad sanku iga saaran waa dhacay marka wiilasha ay qaado guriga igaliya hataa wiilkii soo ordo qayliyay iyagana marka waxay ku dhaceen bigi waa carreen anu waxba u jeedin indhaha dhan ay xanuunay oo waxba iga dhuftaan maano indhaha waana jiifaaba oo qof already sunti baashi ay ku saaqda ah wax aan kala garanayo ma lahan kadib ana guriga joogan soo baraarugo sheekada liiga sheekeenaya marada markuu soo bixinay sanka liiga saaray wax dhan war nimanka marka arkab waasasay ana guriga meesha aan deganahay gadaasheeda Axmed Rashiid iyo asxaabtiisa waxaan ku bishii hal iyo laba qof ay dhigaan oo tuugo oo lagu dilaaba hadda wiilkaas wallahi waa u oynay waa u aynay waa inaan dacwad aan u qorno oo soo ceshano waa la bedelo Soomaa Axmed Rashiid ay ku soo gaartay markii la bedelay dibka waa kana way dhacday oo gabdhiyaab hadda lagu agaarsanaya oo gabdha kaliya ma ahan wiilalna way jiraan Soomaaliyeed marka ina u dacwoono oo soo ceshano waa kana waa u oynaa aad aragtaan dibka dhacaayo okay taasi waa taas oo saas u dhacday waa 3 bari ka hor wiilkan khayr Allah si daraadiisa ku badbaaday tan labaad waa shalay maxay ahayd alaab rabni meel aan ka soo gadano guriga albaabka saan u furnay anagoo dhibka ay nagu dhacday oo taas aan 3 bari ka hor la igaarsiiyay oo haddana maxaa la dhihi jiray dhibkan iyo waxa jiro og aan inaba tuhum qabinba ilaahay amarkii fiiri guriga albaabka saan u furnay aan wadada soo istaagnay highway-ga gaariga soo ordo marka horta inuu istaajiyo taxi u baahantiin la dhahaa waa ku dhacnay ninka wadan nin madow ahaa laakiin waxa naga hoos baxday inaan taargada fiirino taxiga ma fiirinin laakiin midabkiisa iyo qaabashinkii u ahayna meeshii aan rabnay inaan aadno alaabta ka soo gadanay Ayman meel aan ahayn uu nageey
ninka waa nin telefoon ku hadlaya intaas aniga tuhun yar iguma jiro qaybta damban ku jira horta waxaa la saaran asaga qaybta shirka wiilkan carabka Ayman ilaa amarkiis wiilka shaki qaadi doona Ayman shaki gali doona oo dhihi doono leeninka ma ka shaki kadib ana baraaruga marka ani telefoon iska jawaabay message gabdho isoo direen gabdho alaab iga ganacsi iga gadanayo sorry telefoon isoo galay walaalo wax iga gadanayaan oo alaab online wax qofkaas iska mashquulsan oo dukaamaha u dhaxeeyaan ah dad qaar dharki rabo dad alaabihi caadiga rabo dad kambaniga saliidii timaa rabo dad oo kuraasta rabo inta wax la ingada waa mashquulsan telefoon fiirina tuhun dhan iguma jiro qof kale ay caawinay mal waa aniga kaligay bas meesha maan rabnee naga leexiyaan wadadan shortcut dhinaca naga bixi ana tilmaamay markii nageeyaan dhahay meesha rabno wado station afka hanoo galiyo kaalin shidaal leh weliga arag waxaan meeshan waa xagee wiilka ila fadhiya carabkan weydiyo waxaan ninkan xaguu noo wada asaga wuxuu dhahay marka dhahday ninkan xaguu noo wada marba noo dhuuminaya shaki igalaayo dheh aniga waa iska fadhiya gadaal asaga jira dad wax u jawaabaya wuxuu dhahay marka masquulan galaya shidaalka inta lagu soo shubay lacagta si bixiye waay 300 oo lacag oo shidaal ku shubtay taxi anaga aan leenahay maaha waa taxi aan jidka ka qaadanay show ninkan inta isquma galay dad ula hadlaya ninka ilaahay masquulan galay oo waxaan rabnay qiimeel yar naga yar fogtaagan telefoonku hadlay asaga markii wiilka carabku waa ilaa amarka shaki miiran waay wuxuu dhahay ninka fiir wakaas masquulna ma galay dees masquul galay uu soo galay waxaan dhahnay masquul ma galay xagga taagneed yaa la hadliisaa dhahnay asagana wiilka indho u shatay af carabi bas u yaqaan af luqad kale ma yaqaan af carabi indhaha laga saaray muxuu ku hadlayo ninkan uu ka shakisan yahay dhahnay wariya meesha naga soo qaadan ugu celi inuu meesha naga soo qaadan celi soo maahan meel ka hadal afkan uu sii galiyay laakiin markii waashkin waa ka degnay ilaa amarkii taxi kalaan wadada ka soo qaadanay gurigan sidaan ku imaanay labada jeerbo dibkaas buu na qabsaday alxamdulillah waan badbadnay marka hal is ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan badbaadiyay asagana wax badbaadin karo markastana adkaarta akhrista يا ويسقبكين كبحة هل اسكبوتو هل إس إلاليو إلهي سبحانه وتعالى وحان أوغو بريايا انت دي متى الله ونحريستو غيركي كلمة قبدا حفصو إرير قارس أها قف كل أودنتي كل أنو مليمة مغانين قبدا أساسيحو نور جرجر أيضنا سمري إيمان الله كسيو ولا لها كلي هذا إيه هستان قبدها كلي إلهي سبحانه وتعالى سنة متقبأه أوغوسو سيدايو حال إس إلالي قبدا بدان وقناع ستاجرتو وآلدان خاصة كو ganacsiga السوشيال ميديا waa badanahay ma yarin wala dib qaba wallahi runtii dibku badan yahay aniga hadda inta aan dukaankan furtay waa muddo sanad iyo bar ah 2 sano ku socno umaleena inta dib ah inta yani aan kala koormay taadi ama malin kartid ya يعني داخلي iyo khaarijiba waa fahmi kartana umaleena khaasatan anaga khaarijka fiirna markuu dibna qabsado waliga iska ilaali dakhliga ugu daran way fahmi kartana umaleena meeshuu warkay u socdo خالص إلهي إلهي سبحانه وتعالى هيدين إلهي لبدا جيربو وها يقول قبصنا كده اسكودي الحمد لله لك إلهي بقى بتبادي سبحانه وتعالى أسايا مهتم اسكبوتا إس إلهي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.